السلام عليكم أصحابتي كسر هذا عياره إيو وركي قدام بي وقتي كان كامل دارجة سبسكرايب كنا صار كوجنا كحسول كرجو جري شيرت إيو لايك تنسكدر كنا ساعات كل عيار وجعل برنامج كانوا قارعة وقت هاي صاحبيال عياره وقتي كان أيام وقع كسرنا إيو ذو أي جيران وروا وين أو آد أو عمام مدن أو حسله ويا هاي هذا نكوهرين أنك كرنتي إيو طلعت كهريال ذو صول لوانيان أنتوني إيو دايل دو حي ليهن ريد يانون هاي دربي مانشستر هدي اللي سعدي قدام بي وحن أركي هلان oo aan gool dhalin ciyaarihii xulkiisa iyo yacni gool la caawin ama gool dhalin ciyaaraha xulkiisa kooxdiisa xilli ciyaareedkan markii ugu horeysay waxa la dabeecadaha noocayo kale markuu haalan gool ka sugaayo xulkiisa kulanka xiga gool ayuu fardhin jiray next city vs united weeyaan marka waxa leeyahay armaha cidihii ninka ka u waalaa marka kuwan waxay leeyihiin already anaga wara jiri doona todobaad kale markay labada kooxood ciyaarayaan runtii ninkana waa Benzema ayaantan waa la way odagii tababarka ku soo laabtay runtii Benzema wuxuu leeyahay malaha Lewandowski waa kan aniga ayaantan Lewandowski ayaa goolasho farinaya laakiin Karim oo ayaantan u dhaawacnaa Real laakiin xoog badnaa ayaantan waa moogtahay iyagu kooxda kaliya waxa laga yaabaa in xululkii markii la aaday iska ilowday in iyagu yihiin kooxda kaliya xilli ciyaareedkan ee ciyaar walba ay ciyaartay adkaatay marna aan bareejo galin xitaa laga badin hadad ilowday waan ku xasuusinayaa Steel Cream ayaa u soo laabtay oo tababarka ku soo laabtay runtii waxa la filayaa todobaadkan inuu ciyaari doono Mareykanka kan waa Aguero xiga ee City inkastoo City u farinin goolasha laakiin todobaadkan Messi oo kaadka fadhiya ayuu ninkan goolka dhaliyay ciyaarta Argentina runtii yacni inkastoo kaliir ku soo galay laakiin wuxuu muujinayaa ciyaartoyga City Alvarez inuu yahay mustaqbal weyn oo Argentina iyo Manchester City waliba City waxay ninkan ka rajeynayaan inuu Aguero ay ka rajeynayaan walow goor raba kabtaas uu gashtay ninkii halan ahaa markana aanu eegno Cristiano Ronaldo iyo Messi ilaa iyo Bale hadaba Messi markuu xal dhaliyay laba gool waxay tan ka dhigan tahay wali in la isku hayo taariikhda ninka ugu goolasho badan all time kamal daariga aan dib ugu laabano Jartiska kadib Ronaldo todobaadkan gool dhalin Messi oo laba gool runtii inkastoo Jartiskan la daawacay kahor intaanu xalay Messi la ciyaarin wadanka Jamaica oo laba gool ka dhaliyay marka labada gool koran ugu dareynaa laakiin iminku wali Cristiano Ronaldo ayaa ah ninka all time ugu goolasho badan kamal daariga waa ninka dhaliyay 117 gool ninka 37 sano jirka ayaa goor hore jibiyay rekoorka ninka ugu goolasho badnaa all time ciyaaraha xulalka Ali Daaci oo haystay 109 gool hadaba waa kuwan ciyaartoyga taariikhda ugu goolasho badan 10 ciyaartoy ee xulalka Ronaldo kale oo soo ciyaari 3 ilaa hadda xulka ayaa dhaliyay 117 gool waa ninka ugu goolasho badan Eva Ali Daaci oo kale 109 gool Mukhtar Dahari ay Messi hayaan ninkana wuxuu haystaa waa ninka soo ciyaarayay 72 85 ninka inkastoo nin fariistay uu yahay ninkaas waa ninka saddexaad ugu goolasho 89 gool ayuu haystaa Messi wali uu ciyaaraya 2005 ilaa hadda uu ciyaaraya 88 gool ayuu yacni inta ugu qoran laakiin xalay marka lagu daro 2 gool uu dhaliyay Messi ciyaartii Jamaica Messi wuxuu marayaa hadda meesha 8 ah laba hadii lagu daro waa 90 gool ayuu Messi soo marayaa still Messi wuxuu fursad u haystaa inuu goolasha si dhaafi karo maadaama hadda uu ciyaaray ciyaartii Jamaica uu laba ka dhalin runtii haddana ciyaar waxaa jirta koobka adduunka horeeya oo la ciyaari doono Imaaraadka hadduu wax ka shaqadana okay weeyaan marka Jartiskan ciyaarta kor ayaa la daawacay laakiin maadaama sideedii ugu qoran tahay ciyaar Jamaica lagu darin wuxuu ka dhalin ninka haddaan ku darno waa 90 Busquets ayaa ninka kale shanaad ugu goolash badan ciyaaraha all time City 4 gool ninka Sunil Jadri isahay jiray Messi oo cunuga Hindiyaanka ana xataa markasta waa odaga ku kaftay jiro waxaan dhigi jiray oo hadda Messi waxay leeyihiin Sunil iyo cidihii Hindiya oo filmada yacni ku roonaa ma hadda wiil iyagu ka socda ayuu Messi ku weerarsan yahay kaas hadda 4 isna soo maraya ayaanu Messi ka hari waayay ninka loo yiraahdo Cali Mafquud ayaa liiska ku jira xitaa Gitalo Hussein Saciida ku jira liiskan Bale 37 gool isna maraya Lewandowski ilaa hadda ciyaar 36 gool isna maraya waka taariikhda rag ugu goolasho badan kamal daariga laakiin wali waxay xaaladda ku xuntahay Cristiano Ronaldo oo Al Ahly todobaadkan ay sheegtay inay u soo bandhigeen heshiis 2 milyan uu ku qaadanayo isbuuci laakiin heshiiskaas uu u dhici waayay sabab ku aadan in iyagu la ganaaxi lahaa laakiin Cristiano Ronaldo hadda xaaladda ku xunruntii isagoo goor Manchester safkood ka waayay ayaa haddana waxa la leeyahay xulka wadankiisa Portugalna ninkan kaydka hal la geliyo oo runtii odagii dabkumaan ku dhaca mise waa ka durqay ku taagan tahay marka hore kooxda ayaa ninka kanu la safayn haddana xulka waxa la leeyahay tababarow garaweysan aad wadaa ninkan Ronaldo xulkan meel ugu qalmo laha balri maadaama ciyaari xulku uu jiray odag wax aan gool dhalin hadda
odagii saacadii ugu dambeeyay baraha bulshada ayaa lagu eedeynayay waxa la ninkan xilli ciyaareedkan kooxdiisana zero ka yahay xulkiisana zero ka yahay haddaba walaashii ayaa difaacaysa ciddaan ma ogtahay Ronaldo ciddiisa waa sidii iyagoo kale waa cidaan afkama laga goynaa Cristiano Ronaldo u jeedid afkama laga goynayahay waa nin yaa cimad isku tuuray wuxuu ku leeyahay aniga maqaarka maalintii ari lagu shuu ku leeyahay aniga ka ugu fiican ah ya waxaan ii sheegaysan Bale iyo Maradona iyo Messi xaytay marka warigaas waa nin isaga cimad isku tuuraya weeyaan waan ogahay inuu laacib yahay laakiin xogaa Ronaldo afkama laga goynayahay ninkaas waa nin shaqulaynaya cidiisana waa kaas ya baraha bulshada kaaga soo horeeyaan maalintii walaalkood lacaayo iyana waa ka u duwan runtii hada walaashii Keita Havertz waxay leedahay runtii ya walaalkeed bay difaacaysa kadib markii la cambaaray walaalkeed bandhig xumadiisii ciyaartii Nation League ee wadankooda ku hareen oo Spain ay soo baxday runtii taageeraha wadanka ayaa cambaaray bandhigii Cristiano Ronaldo ciyaarta Ronaldo walaashii waxay leedahay ya waa kubadda cagta awal malahay way leedahay runtii walaalkeygiyow waxaad wadankan u qabatay lagaaga mahad celin baa leeyahay runtii lagaaga mahad celin ay leedahay ya wali waxay aaminsan tahay walaalkay waxay taagan tahay ama diida ama yeela still maalintii kamaldaariga aare lagu shubay kii ugu fiicnaa way taagan tahay runtii cid aan celin karo marka waxay leedahay walaalkay ya waa isdaalaysi mooyaane nin ka fiican maqaarka ma jiro midda kale waxay leedahay cadaalad darbe maqaarkan ay leedahay runtii waxaad u qabatay wadankan runtii ya oo aynan ku mahad celinayn ay leedahay reer Portugal laakiin Portugal waxaa la soo jeedinayaa Ronaldo in keedka la dhigo xataa waxaa ku mahadsaday Ronaldo Antonio Cassano oo ahaa ciyaartoygii hore Real Madrid iyo Milan iyo Inter iyo Roma kooxo badan Italy ay soo ciyaareen runtii wanin yani aylan ciyaar ugu fariistay runtii qatar laakiin ahaya Ronaldo inta badan aad ay soo kacsan yihiin dhowr mar ayuuna eeday Ronaldo ku eeday inuu yahay nin kaligii taliye ah oo runtii kaligii cuna ah dhowr mar ayuu eedeeyay oo yiri ninkan kamid ah ciyaartoy ugu fiican dunida ya oo ragga kala ka qatar badan haddana wuxuu leeyahay Cristiano saaxiib intaan kadib isdaalinaysa kadib ciyaartii xalay wuxuu leeyahay waa ku bari iska fariiso halaan kadib isdaalin haddaad diidan inaad fariisato Ronaldo oo madax adeegto ya hadda waxaad noqonaysaa uu leeyahay ya bedel joogta aad noqon doontaa yani ciyaartoyga bedelka lagu soo geliyo si toos ah u noqonaysaa ciyaartoyga kedleyda ee bedel gaadgaada ayaad noqonaysaa uu leeyahay haddii kale hadda ciyaarahan ka fariista sharaf leedahay uu leeyahay Cristiano Ronaldo marka runtii wuxuu leeyahay Cristiano waa inuu isdhiibaa ya waa inuu joojiyaa ciyaarahan oo garoonka haweenka iska dhex ordayo wuxuu leeyahay haddaad hadda ciyaaruhu ka fariisan weyso waxaad arki doontaa adigoo joogta lagu bedelayo ciyaaraha waxay leeyihiin fursadii ciyaartoyga usoo baxay Portugal sida Rafael Leao, Joao Felix iyo kuwa kale oo odaga booskiisa gaadgaadaya calay xal odaga xal xitaa saaxiibadii oo daawanaysa ciyaarta ayaa lagu agaraacay Georgina ciyaarta daawanaysay ya waan lagu agaraacay odaga runtii iyo asagana waa dhimana haddaan gool dhalinin haddaan u guuleysanin waa dhimana ninkan waraa u kacsana xalim jeeda ya bilani awal malaha ka war kabiirkii waxa lagu baashaalayo oo xaaskiisa joogta xitaa maqaarka uma cimaamaden marka in leeyahay ninka maldaarigan marka in leeyahay nacla u gooyan waa ka kabiirkii xaaskiisa joogtaya ayaa xal lagu agaraacay marka ma inuu sharfin runtii odago waa ka marka Ronaldo waxa la iska fariisi waa daashay xilli Neymar qudhiisu isna uu yahay nin kale oo todobaadkan gool dhaliyay waxa la runtii wuxuu aad ugu dhow yahay rekoorkii Bale mana ku dhawa salahan xirka FIFA waxay taagan yihiin Neymar 2 gool ayuu u jiraa inuu bareejeeyo Bale oo ah ninka ugu goolasho badan Brazil ay leeyihiin laakiin xirka Federationka Brazil waxay leeyihiin maya Neymar 20 gool ay u baahan bay leeyihiin inuu gaaro Bale marka Neymar wuxuu leeyahay calayta waxay noqotaba aniga kulay waxaan diyaar u ahay inuu leeyahay kabtaas gashto oo aan ka daba gaaro laakiin waxaan ogeyn Messi sidoo uu cadareynay xilli ciyaareedka runtii ya haddii Ronaldo uu indhaha taagtaaga ayaantan lagu kacsan yahay kabiirka Messi oo xilli ciyaareedka ruuxa xilli ciyaareedkiisa ugu goolasha yaraa tan iyo 2006 oo 6 gool li Real ayaa si sakan aad u kacsan waana ninka yiri maalweed ii aamina waan soo laabtay urbanigi ugu fiicnaa ayaan helay wiiri Leo Messi bal hadda fiiri saddexdii ciyaar ugu dambeeyay Arsenal uu ciyaaray Leo Messi 9 gool ayuu dhalay runtii ya marka odagu waa kacsan yahay ayaantan waa duulaya midda kale taageerayaasha ayaa waxay leeyihiin Allah Manchester wiilkan baa ka faktay bay leeyihiin runtii mayna ciyaartoy doonaysay Sesko ayaa toodka dhaliyay gool wonderful ah oo runtii cajiib ah uu ka dhaliyay Slovenia markii uu geeska ka lulaaday ciyaarta uu gool fantastic u dhaliyay runtii 19 jirkan waxay taageerayaasha leeyihiin Allah ilaahay waatan wixii Man United ay yani weysay yani waxay leeyihiin Manchester ciyaartoygan bay leeyihiin ninkan ayaa markii dambe iska doortay inuu ku biiro kooxda Leipzig isagoo Man United ku biiri waayay runtii Chelsea iyo United way doondoonayeen ninka runtii waxaana goolku dhaliyay laba war dhigay kii
Mark van Basten uu dhaliyay finalkii Euroga 88 midda kale mina waxaa la sheegay inay doonto ciyaartooyga kooxda Chelsea Armando Broco ninka ay Rossoneri doonayaan inay ku bedeshaan waylada Giroud iyo Ibrahimovic si duqowaya xataa mina waxaa la sheegay in ku qanacsaneen ninka Origia marka ka Chelsea way doonayaan baa runtii xilli Ozil loo hambalyeynay runtii oo waxa u dhalatay gabar kale u dhalatay runtii ninka gabar ayaa u dhalatay runtii todobaadka kan runtii waa ninka ku wareersan garoomada laakiin guriga ayuu odagu hayaa waa inaad meel ku ficnaataa moogtahay labada dhinac inaad zeer la lama rabo waa labada jibaal ku ficnaataa ninkan jibanooniga caadi kuma ficna laakiin jibaalka guriga ayuu hayaa Mesut Ozil ayaa waxaa loo dhalay todobaadka loo cimaaday waxaana loo bixiyay gabar loo dhalay Ela ayaa loo bixiyay runtii ninkan ayaa hor u guursaday gabadha ugu quruxda badan Turkiga ugu quruxda badneed qaadatay hadda ka hor ee Amina Gulsi xataa arooskii waxaa joogay ninkii Erdogan ayaa joogay runtii oo 2009 ay labada lamaan isguursadeen runtii waa canugoodii labaad hadda u imaanaya runtii Ozil oo baraha bulshada soo dhigay in canug yar u dhalatay ayaa fariimo kala duwan ka helay caalamka iyadoo 400,000 oo like uu helay qoraalka runtii rag waaweyn oo uu ku jiray beri ayaa ninka u soo hambaliyay runtii horena gawar weyn ayuu haystay runtii u dhalay Maarso 2020 oo la yiraahdo Eda Ozil ayaa weedan Turkiga ku qarash gareeyay kadib markuu tagay Arsenal 2020 Fenerbahce uu ku biiray Fenerbahce uu ka sii socday bas qeer ay hadda jooga runtii marka odagu hadduu garoomada ku wareeray gurigii ayuu ku shuqulaynayaayo waa ka midda kale leenabna ka yahay garoomada ayaan tan isagu lama ciyaarsiin xitaa midda kale waxa lagu dhagayn qoliin dhayarta ahaa iyaga soo saaray mugtay ciyaaraha waxaan leeyahay FIFA Kambalow iyo waa ciyaaraha PlayStation gacanta lagu ciyaaro hadda waxay soo saareen FIFA 3 dadkii dhanna wajiga u dheelooyin hadda gabar dacwaan arkayo ciyaartoy Braziliano maalin dhaweyd Brazil u ciyaaray ciyaartii ugu horeysay oo raado Lucas Varasima ayaa xaaskiisa dacwo ay tahay waxay leedahay maan guursadeen bay leedahay ninkan xunka maxay tani wajiga iga ciyaartay leedahay mugtay waxaan PlayStation game kale yiraahdo kale dadku wajiga lagu dheelaa wax wajiga gidisana meel iska socdo gidisana san qala dhaxdhaxaya gabadhan waxay taagan tahay waxay cambaaraysay qolyaha soo saar fifada waxay leedahay ninkan ninkeyga ma ana ninkan guursaday ma fool xumeen in fool xumad isoo bandhigaysan bay leedahay waa ninka gabadhan ninka la saruwaya waxay leedahay ninka iga soo ciyaaray wajigiisa leedahay xataa dacwadu kaliya iga ma ahno Arsenal ku dheedo way dacwoonayaan ciyaartoy badan ay wajiga laga soo ciyaaray FIFA 3 Tamyus ma arki kartid Ismidraawi ma arki kartid Ismidraawi waxa uu muuqdaa leey runtii ay barbardhigayaan ninka la yiraahdo Andre Arshavin oo ninka markaad aragto Arshavin baad moodaysaa sidii wajigiisa ka dhigeen ninka Raawiya laakiin Arteta ayaa ahaa kii ugu xumaa ay wajigiisa ku ciyaareen ayaa leey runtii Valverde in yarkii asoo iska in yaray si waalin yartii Tamyusu ilaahay amarkii kii wuxuu ahaa waa kay Ben White qudhisaasa loo galay Arshavin bay ka dhigeen kana waa Lokongo marka waa ka xaaladaha qoliyaha sanadka waxa la yiri bari qoli sanadka ku ciyaarteen gamekii FIFA dadkii xataa wax u muuqdo soo dhow malaha xataa Chelsea ciyaartooyda Valverde sida loo galay mid kale waxa la Arsenal ciyaarta ka hor derbiga todobaadkan taami Arsenal dhexmaraysa Arsenal hal euro looga hogaaminayo durba maxaa yeelay gabar wiil Arsenal uu shaqaysan jiray Sanchez ayaa hadda wax ku geeyay doorka oo gabadhii hadday la socotaa nin reer Spurs oo la yiraahdo Eric Dyer ana Modler hore wuxuu soo jirtay ciyaartooyga kooxda Arsenal Sanchez waxayna ahayd taageer Arsenal laakiin waxay la socotaa le runtii waana gabadhii bari hore ku moodayay Covid-19 markuu jiray 20 meelaha ay wada joogeen hadda way kala tageen hadda waxay la socotaa le gabadha Tottenham le runtii ayaantan shamartu waxay leeyihiin waa rag baa tahay haddaad Arsenal dhaxgalayso naagaha ka dafaysaan rag baa tiin bay leeyihiin runtii waliba waxay leeyihiin gabadha nasiib noota ilaa hadda ambitiman xiriiradka nahay bay leeyihiin runtii marka reer Arsenal waxa la runtii gabadhoodii hore ayaa lagu geeyay runtii still ciyaartu maadaama Sanchez xabadiisii hore ninkan uu hadda la ciimadanayo waxay leeyihiin waa still 1-0 oo ciyaartu Arsenal laga horeeya waxa ciyaaruhu ka fariistay ninkii Ramirez isagoo jiray da'da 5 ciyaaraha hadda ayuu xaqiijiyay waxaanu sheegay 16 ciyaaruhu soo waday wuxuu leeyahay waad mahadsantiin intaad soo taageeriseen waa ninka Chelsea la soo qaaday ciyaarihii Champions League 6 sano halka la soo joogay waa ninka 16 sano Chelsea ku soo qaatay ciyaaraha horyaalka aan raahday guud ahaan 200 ciyaar u soo ciyaaray hadda waa ka ciyaaruhu ka fariistay Ramirez-kii xidka ahaa iyo caataha ahaa gadaashii Cusmaano badan oo caata ciyaaruhu soo galay isaga Cusmaan qaar u aqooni jiray dad badan oo isna wax dhaamin oo naf yar oo yacni maxaa radayay korqomayaal ayaan arkayaa Tottenham waxa la sheegay inay Oblak doonatay hogol rasmi ku bedeshaan bay doonayaan goor ay ninkan sidoo kale ma doonaysan inay ku bedeshaan Dehay wala sayya xil Nasr Khalifa uu leeyahay oo ka codsaday UEFA in Barca ay ganaxaan kadib Barca xil ciyaareedka iyo shid lagu sheegay dhaqaale badan suuqa ku bixisay ciyaartoyna ay qaadatay ayuu sheekhu wuxuu leeyahay nimankaas waxay sameeyeen cadaalad miya sharci miya wiri maya ninka in la ganaxaa wiri macna labada loo ogtahay Khalifa iyo nimankan aad isu kacsiin hada koor ninka Neymar ka qaatay nimankan haddana wuxuu ogyahay Messi inuu soo socdaan oo xagaa soo socda qaadan rabaan hadda uu dagaal ku sii furaa wuxuu leeyahay runtii
waxay nimanka barsh ku kacayaan UFI ya cadaalad darwayaan nimanka hal qabto xilli Chelsea sheegay inay diyaar u tahay ninka 180 milyan lagu tartamay Jude Bellingham inay iyagu qaataan waa ninka ay doondoonayaan Real Madrid iyo Liverpool xataa City booli wuxuu diyaar u yahay aniga muruqi u sheegay inuu maxaan Mareykan ka ahay haddaan Bellingham ku garaaci u leeyahay geerida xalaal ma ahan ya xalaal ma ahan waa ku garaaca anana qaadanaya Jude nad gariyo